kor iyo hoosba loo dhisay. tan waxaan dhihi karaa waa caasimadda Afrika ugu quruxda iyo nadaafadda badan. Hore booskaa waxaa u haysatay waddanka Rwanda caasimaddiisa Kigali, laakiinse hadda waxay u muuqataa in lagala wareegay. magaalada sidaa u quruxda kor iyo hoosba loo dhisay waa Addis Ababa. Waa ku adag kanaya. Suganahay Addis Ababa waxaan tegi doonaa meelaha ugu shidan mid ka mid ah meelaha aadka dhalinyaradu u fadhiisato. Raggaasna waa odayaasha asxaabta. Waxaan u soconaa waxaan dhex socdaa Addis Ababa. waxaa quruxdaas aad aragtaan waxa weeye waa Addis si fiican bay u dhismatay maasha Allah. waxaan idinla wadaagi doonaa barnaamijyadeeda iyo bilicdeeda insha Allah. kulanti wacan wanaagsan dilhaantii waxaan ku suganahay Addis Ababa oo noqotay caasimadda Afrika ugu quruxda badan uguna nadaafadda badan. waxaan iga dambeeyaa 2 sano aan ka soo maqnaa ayaa isbeddelka intaan leeg ku dhacay. waxaan idinla wadaagi doonaa muuqaaladeeda iyo dhammaan isbeddelka ka dhacay Addis Ababa siduu u egyahay. waa kane ila daawo. ربو شرقي سعابي ربو شرقي سعابي أدوكو وحشوي أحبها حيث تيجي عدينتي بعيد مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. تبارك بريئك بالشاري تاعك رحيم واو بعض الخطيرة من في قوتي. hadda waxaan ku suganahay airportka Ethiopia Body International Airport. waa la wada joogaa. Turn it on,